عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا كنن كيغا oo ah kaarshe talk show meel walba joogtaan ba waxaan idinku leeyahay aad baan idin salaamay Soomaali Maxamed meel walba joogtaan ba kusoo dhawaada waa barnaamijkan doonayay inaan kaga hadlo waa Sharma Boy oo maanta hilfaha u qaaday waa Somaliland iyo Puntland waxaan doonayay inaan ku yara iftiimiyo bal Sharma Boy marka ugu horeysa taariikhdiisa aan doonayay inaan dib u raaco insha Allah halkan aan idinka soo dayn doono taariikhdiisa oo dhameystiran asal ahaantiisa bal halka uu ku dhashay ama halka uu ka yimid haddana waxaan doonayaa hadda inaan ku horeeyo bal waxaan social media hadda ka socda oo aad xalad u leh haddaba Sharma Boy maadaama uu yahay inaan yar maxay dadku maanta oo dhan ay u wadilayeen inuu cabsanaa maxaa loogu saadinayaa inuu cabsan yahay Sharma Boy sama taqaana markuu hadlayo xitaa caadi ahaan uu hadlayo inuu sidaa hadda u hadlayo haddaba haddaynu dib u eegno ama baan dib u milicsado Sharma Boy maanta wuxuu caayay Somaliland iyo Puntland haddana hase yeeshee markuu Puntland caayay isagu reernimo ayuu ku ataagay laakiin Somaliland xitaa hablahoodii ayuu wuxuu ku sheegay inay u yimaadaan wadanka Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho inay u yimaadaan rag haddaba dadkan maanta aad ugu doodaya ama walaha ma khaldama waa Ilaahay oo uu khaldamay hal cafiyo maxay u arki waayeen waxyaalahan laha haddaba haddaynu dib u eegno ama dib u milicsano bal horta intaan guda galin barnaamijkiisa ama hadalada aan maanta doonayay inaan kaga hadlo bal aan soo yara daawana klibka uu ku caayay Somaliland iyo Puntland عيال حمر أنا يروح بدل كرو ميل بيجوان عيال حمر ميل بيجوان أبتي يوروب بيجوان مريكان يجوان ورأف عشان تقارضوا دونك ميل بيجوان يكونوا ليهين أنا إذا وصل أنت كليتو يا هلا جيا على لايف كان هلا جيا عيال حمر بيسألوا باهي على لايف كان بسكوت ويلك بسكوت سن مقدشو عيال حمر والعيال حمر عاو بإيدك كجيد ماشي عاوي عاو عشان مدقرا هايو ما قجرا ما يصاحب أنا وافكرا ما يصاحب أنا وافكرا راب علو ساردا رجل اللي من تضوى الله خيرا هذا كان صوحر براذا صوحر براذا الله صوحر هذا يا الحمر يا الحمر هلا شرقريو ميل بقى جوكتان يا الحمر ميل بقى وراني عاو هذه شيء انت عن كهدلي انت عن شيء انت عاو كهدلي انت ايغو الى تضع قوان ما ماشي اوغ سو هدليسان وراني انت بان انت اوغ بان هذا كل انت فارقيان ماشي الا هاد waxa iga muuqdo ana meeshan live kiga ila hada waxa iga muuqdo oo iska cala aniga amrura ka sabre war hadaad baan meesha ka bax laakiin inta meesha ku jirto waxa cadeynaysa inaa Sharma Boy marwal baanta aad ka maarmin king of Muqdisho inaad ka maarmin meesha isaga bax brada isaga baxa cid kale uga ma baahna brada ay maxay ka bedeli kartiin I am Sharma Boy يا الحمر الله إذا كنت ودقيقة تدك كسو سارع يا الحمر دقيقة صومالي زونجس أكو هاي أفريقيا أم عدان أم الشيناس إنه كسو يعني محلي رأكشن كسو محلي راني الكعسينا أساسا والكعسي ولا الكيسة هاي كيراني انت انا صول لك هذا راب soo baxay walaalkeen ilkaasi oo rapper Soomaaliyeed aha oo wiligiis soo jiray oo nolosheed inta adduunka saarna aaminsana ana hees iska dhaafay xataa xadiis ana barna aaminsana waxaan leeyahay rabna meeshaas uu ku egahay waxaan ka rabay views aha haduu asii ka rabin xataa ani shakhsiyaadteeda views aan ka rabay barnaamijkaasna ma jiro mana socdo wax ilkaas walaalkay asku heesana malahan waligeyga nolosheeda ma wada hadlin waan rajeynaa inaan wada hadlno waan rajeynaa inaan heesas la soo qaadno waan rajeynaa inaan wada kulanno laakiin aniga iyo ilkaase waxba naga ma dhaxeeyaan waxaan ahay Muqdisho waliba ciyaal Madiina ciyaal jeera maskiin cid wax ka bedeli karta malahan maadadaasna iga qora caawo noloshiina inta adduunka saarideen iga qora leefka inta ku jirto إلا اللي بحيد أنت ماشي كجرت يا الحمر إيجا قرع عاو والله وبالله أطلع إيجا ما أهن هذا ديله نولشين أنت أمسيتي هرجيس لما قاعد لوسينو نولشين حتى مال سومال لما قاعد شغال في سومال هرجيس كلي معها الساق خليه معها سومال عند دارود بودجا ربحان تادجا ورسنجلي هادجا ونوض خيب سنتا حتى مال ودارود كدجا حتى هذا يعني سومال لان حتى يقول عرفت عيال مقدشو والله وبالله وطلع هركعد ما عرفته هركعد اسكول بلوسي هرتيس ماشي ددك لوgu toobto intay geesan tooganina xataa iguba dab igu qabtaa ku dhaay yaal xamar hadaa ay aragtaan dab hal igu qabto brada kin sool maxaa leedahay orniyo waxa walba saas aan fahanti
adi waxaa laga yaabaa inay Somaliland meesha ku jiraan commentiga Marqaanland hal igu soo qoro hadda hal igu soo qoro Marqaanland hal igu soo qoro inta hal igu soo qoro niyo ay hooyadiin anaa wasarey Puntland hooyadiin iyo dhiladeedan dhashay anaa was uma soo socdo laftirkooda silkooyadooda u shoogaan soo kama dhalan anaa was saacasna loo ka baxay just know saacas laga bilaabo hooyadeena waa abgaal aabaheena waa habar gidiraan ku dhahay silkooyadoodna anaa was ku dhahay saacas laga bilaabo nin sacdaan ahaa ku dhahay oo reelowla ah inta kalena anaa was waalidiintoodaba ilaa idan dhashay nacal Somaliland aan ka hadlaaya Somaliland aniga hees soo qaaday macnaha noo soo qaadin hees iyo kaagama baahnin iyo fitirka dhaa iyo ciyaalka yarka galaa inta kale markii laga reebo oo saliimka uurka nadiifka xagga markii la dhigo war ciyaalkiin ani soo adik idin ma soo heesin ani Somaliland aan soo heesay Somaliland Hargeysa aan soo heesay Hargeysa brotherkayga waa Soomaali dhul Soomaali ee leedahay meel walba ee Soomaali degtaan ku dhahay hadee la tahay 2 nus daqiiqo hadee tahay meel yariis oo degmo yariis iska dhaaf tuula hadee tahay warwaab hadee tahay oo soo heesta inaan soo heeso waa maadada aan u soo galay fanka yar haddaad soo daawateen kilibka yar ee aan doonayay just inaad aragtaan maadaama aan fiicnaan kilibka oo dhammaystiran inaan idin wada daawadsiiyo way fiican tahay qofka in ceebtiisa ku leeyahay asturto haddana waxaynu dib u eegnaa aniga iga xasuusina mar walba ama channelkayga ha noqoto ama dadweynaha maanta ila shaqeeya intayada waxa noqotee in aanu eegno mar walbaba bal khaladaadka ka dhacay inaan kan yar ee Sharmaboy haddii Sharmaboy aynu dib u eegno xoog waxay u ficiltamayeen ninka la yiraahdo waa Ilka Case haddaba Ilka Case markii uu soo jawaabayay ayaan doonayay inaan kilibkiisa idintuso markaana tolobiyo xanuunsanayay muxuu ahaa bal aynu dib u eegno waajaqa marka qabanana oo baqa aballa waa darku idhaqa kama helo ana wasaqa ama shuka imada unaqa haddu iswaalana waa laqa isla dadkiiba haddaynu halkaa kaga nimaadna fiidiyogiisa yar waxaynu eegaynaa Ilka Case bal markuu u soo jawaabay isaguna ee uu kelmadda uu ku yidhi haddaba Ilka Case isagu maxay hadalkiisa raacsanaa aniga inankayga yar ayaaba ka cod wanaagsan amaba ka cod weyn isagoo saana ku daray inuu inankiisa ku yidhi aabow anaaba ninkan ka cod weyn haddaba iyadoo waxaa suba jiraan talow Sharmaboy markaa miyuu cabsanaa bal waxaan doonayaa dadweynaha ka dhaadhiciyay dadkii inuu cabsanaa bal inaan u yara iftiimiyo bal yadana ila daawada markuu u yara jawaabayay ninka la yiraahdo Ilka Case walata walla wiilkayga jirka ka codweyn wiilkayga jirka walla saajid ma ya saahib wiilkayga saahib wuxuu dhabta kara aba wallahi billahi talaga codweyn Ilka Case inta kaga nimaadno bal waxaynu eegaynaa ama aynu dabagalaynaa markii uu isagu Maxamed Saciid Biike waxaad ogeedeen inuu gaf uu sameeyay amaba uu khaldamay haddaba dadweynaha oo dhan ee YouTube-ka isticmaala amaba social media ku jira oo laftamintay ka tira leeyihiin especially kuwa ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya maxay Biike ku lahaayeen se maxay Biike ku dabagaleen adigu ma isweydiisay se ma istiri talo maxaa Biike lagu maagay ama maxaa dadkoo dhan ka qaylisiiyay maanta haddaba markii uu Somaliland caayay asuu waliba dub hablahoodii caayay oo uu ku sheegay in rag soo doontaan oo rag la'aan ay ka jirto Somaliland maxay dadkii oo dhamay u wada leeyihiin uu cabsanaa ama basiibo ahaa waxaan doonayaa inaan idinka dabageeyo bahasha qabyaalada la yiraahdo inay meel walba galayso oo laftamintay ka tira leeyihiin majority waxa u badan YouTuberada waa la garanayaa taas way bay wada sabood garanayaan mid walba uu leeyahay uu cabsanahay hal cafiyo inagu ku sii tirax tagi meena laakiin waxaynu eegnaa klibku Biike ku caayay maadaama Biike uu ahaa fanaan weyn oo uga soo horeeyay fanaanimada laakiin si kasta uu khaldamay Biike isagu ina yar buu ahaa sidoo ugu jawaabayna si khaldan ayay ahayd bal haddaba aynu eegno si dadku aad ayay ugu farxeen دبال فانكي كدعي بكيجي حمر دمان تمر بعد ما تقطعي وا يقدقني دامك وين haddaynu intaa kaga nimaadna Maxamed Saciid Biike markuu sidaa u caayay markaa talo miyuu xanuunsanayay miseba uu cabsanaa dadweynaha ayaa doonaya inaan kelmadda ka dabageeyo ninka la yiraahdo Sharmaboy uu badheersanaa haddii aan anagu si u eegno maadaamaanu dad xogogaal aan wareysanay waxaana loo sheegay inaan wax halaalo wuxuu qabiyaali jirin waxaana ay badheer ka ahaayeen inuu caytamo dhaqankiisa ana ay tahay inuu sidaa u caytamo wuxuu doonana uu yiraahdo waxaan doonayaa barnaamijkan mid lamid ah intaynu ku kulmi doono inaanu
idinkaga tagno sidaa iyo nabadgelyo. laakiinse waxaa iga dardaaranaa Sharma Boy taariikhdiisa oo dhammaystiran inaan halkan kasoo gudbiyo. waxaan leeyahay cadowgu darbiyada ha jiiro.